قصة عجيبة والله يابله من داعيك ودنك مغربك وحوردك أركها النبي صلى الله عليه وسلم وحوردك صوبوقاني أو كله هبلو وحد أدا هبل إنه هبل وحادنا أشيكتا إنه أهل الجنة كمدي هاي زبن كينان أي قصة دعضي habeenkii labaad isla riyada ayuu arkaa habeenkii saddexaad isla riyada ayuu arkaa ninka maqribiga ah si toos ah ayuu u tagay hantidiisii ayuu qaatay maka ayuu aaday waa uu umraystay kadib wuxuu bilaabay dadku yaqaan inuu la xiriiro ducaada kamid ahaa ee saalixiinta ahaa waxaan doonaynaa ninka hebel la yiraahdo way fatasheen way baareen ugu dambeyn way heleen xaafadda hore ayay ka heleen xaafadda ay soo galeen way weydiiyeen ninkii dadkii ayaa ninka baaray arkay waa dad wanaagsan muuqaalkooda iyo hanaankooda wanaagsan haddaan hebel baan doonaynaa bay leeyihiin waxay leedahay maxaad ka doonaysaa ninkaas munaasib idin ma aha waa ninkaas nin kharbaan ah dad saalixiin baa idinkuna tihiin waxay yidhahdeen waan doonaynaa xaggiisa ayay aadeen way heleen wuu u soo baxay daaciga wuxuu leeyahay inoo soo baxay waxay islahaayeen nin caabida weeye gar weyn leh wajigiisa u ifayo misana waa nin aanba sidaa ahaynba wuxuu yiri way naga baqay wuxuu yiri wariyaa tihiin daaciga ayaa u soo dhawaaday wuxuu yiri warniyow hebel ma tahay wuxuu yiri haa waan ahay wuxuu yiri maxaad doonaysaa wuxuu yiri waan ku imid waxaan kugu bishaareynayaa inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam aan arkay saddex habeen wallahi inaan been ku sheegay wuxuu ugu yiri ord hebel aad oo ugu bishaarey inuu kamid yahay ahlul jannaha ninka wuxuu leeyahay madax ayuu gacanta saaray dhulka ayuu ku dhacay wuxuu yiri ma aniga ahlul jannaha kamid ah been baad ii sheegaysaa wuxuu yiri wallahi inaan been ku sheegay hadda ayaan soo faaruqay umrada suurtagal ma ahna been ku sheego wuxuu yiri ma aniga oo fariistay isagoo ooyay wuxuu yiri ina keen xaramka aadnay kadib daaciga wuxuu yiri ilaahan kugu dhaarshay عملك أد سميسي وامحي وحوي مانيقا والله روحا وفاجر سن إيه مقالة بانا والله كان مجرم سن بانا هاي حدانا با وضن كان أنا مجرم سنين صلاة دوانك قابي حرم كواتين عيقا صندو ما ننتقين وحوي بلدي بسوق الله أبو والعمل أنبار وحوي والله هل عمل بان حسوسته وحيري نينكا هبلا ودرسكينا والله أفصدي وغيريودي كبر يا عرور بو كتغي waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan mushaharkayga u qaybiyo aan qaybsano annaga iyaga wallahi aan ku dhaartay laga soo bilaabo maalinka aan dhaartay ilaa hadeertaan mushaharkayga waxaan u kala qaybiyay caruurteedii caruurtooda yaa camalka sameyn kara nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kan u taagan garoobta iyo miskiinka wuxuu la mid yahay kan la dartii u jihaadayo kan sooman aan afurayn iyo kan taagan oo aan daalin ayuu la mid yahay wuxuu yiri kan xaramka aadna wuxuu yiri maya sida tan xaramku ma aadayo waa uu baxay uu soo qubaystay labiskiisa ayuu soo xidhay xaramka ayuu soo aaday wuxuu leeyahay markii ugu horeyso ay galeen waa ooyay ilintii muusan joojin salaada ayaa la aqimay imaamkii ayaa tukaday aayaadkii ayuu akhriyay misalnika aad buu ooyaya wuxuu yiri aniga oohintiisa aan la ooyay ragcada koowaad ayuu tukaday tan labaad tan saddexaad sujuuda ragcada ugu dambaysa ka hor madaxiisa sare uma soo qaadan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku afsaday إلهي ودخسي والله إن هذا جنة كجلين قركاga iyo dharkaaga iyo hantida
iyo cibaadaadkaaga iyo salawaadkaagaba ee waxaad jannada ku gelaysaa qalbigaaga hadduu yahay mid ilaahay run sheegay camal basiid aad u liita markuu kula yar yahay ha ahaatee ilaahay la weyn ilaahay agtiisa ku weyn camal adiga kula weyn indhahaaga ayaa suurtagala inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka yeelo mid yar oo liita aan la aqbalin isla weyni kugu jira sababkii ha quusanina waxaad la tacaamulaysaan alle kariim ah kadib xasila waxaad tihiin ogaada muslimiin